kooxaan Xafiiska Dhallinyarada Ciyaaraha ee dawladda deegaanka Soomaalida u kala dirayo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Faafan ayaa ka qaban doona tababaro iyo wacyigelin la xiriira sidii dhalinyaradu uga fogaan lahayn waxyaabaha dib u dhaca ku keena ee uu ka mid yahay maandooriyo isla markaana noqon lahaayeen kuwa wax soo saar leh oo wax ku soo kordhiya dalka iyo dadkaba. wasiir ku-xigeenka Xafiiska Dhallinyarada Ciyaaraha ee dawladda deegaanka Soomaalida Maxamed ayaa daahir ayaa sheegay in ujeedada kooxaan loo kala diray ay tahay sidii dhalinyarada ugu abaabul lahayn ka qayb qaadashada horumarka isla markaana loo wacyigelin lahaa waxyaabaha dhibaatada ku ah horumarka dhalinyarada. ujeedada loo diray waxa weeye dhalinyaradaas inay hirgelinta guddiga kobcinta garaadka dhalinyarada iyo la dagaalanka dhaqamada xunxun iyo daawooyinka ay dhalinyaradu isticmaalaan sida qaladka loo isticmaalo lagana qaybgelin doono oo shaqada ay la qaban doonaan ama ay la wadaagi doonaan xafiisyada bahwadaagta ee heer degmo. qorshuhuna yahay in dhalinyarada looga digo dhibaatada ay leedahay waxyaabaha mukhadaraadka dhibka u leeyahay isla markaana wacyiga kor loogu qaado si ay uga wantoomaan oo loo helo dhalinyaro maskax fiican garaad fiican leh wax soo saar leh. saadaradeed tababaro ayaa laga qaban doonaa degmooyinkaas lixda degmo ama lixda maamul waxaana la tababari doonaa oo tababar ka qayb qaadan doona dhammaan xafiisyada aan bahwadaagtanahay. kooxaan kala baxaya degmooyinka ayaa sheegay in wacyigelinta kasta ay soo dhisi doonaan guddiyo kala duwan oo ka shaqeeya hawlaha dhalinyarada kuwaasi oo ka koobnaan doona xafiisyada bahwadaagta. goobaas markaan tagno insha Allah Dhallinyarada waxa ka bixin doona tababaro la xiriira waxyaabaha muqaadaraadka iyo waxyaabaha xun la xiriira dhalinyarada sidii uga wantoobi lahaayeen. sidoo kale waxaan dhisi doonaa guddiyo isku dhaf ah oo ka kooban xafiisyada bahwadaagta ah ee la xiriira dhalinyarada. guddiyadaas oo aan ka sameyn doono halkaas iyada ah guddiyadaas oo rajeynayna marka tababarka qaataan kadib in aan dhisno ayna fulin doonaan shaqooyinkaas iyaga aan u eegman doono hadduu Ilaahay yiraahdo. marka waxaan rajeynaynaa insha Allah inay shaqooyinkaas sida ugu dhaqsiyaha badan inaan dhaqaajino wixii maanta ka dambeeya bari wixii loo gaaro oo ay bilaabanayaan insha Allah. qorshahan uu Xafiiska Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee dawladda deegaanka Soomaalida u kala dirayo kooxaha qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Faafan ayaa ujeedada laga leeyahay tahay sidii garaadka aqoonada dhalinyarada kor loogu qaadi lahaa isla markaana uga faa'iideysan lahayn fursadaha jira iyagoo isticmaalaya xirfadahooda iyo aqoontooda.